salaamayaa marti sharafta meesha fadhida rag iyo dumarba si gaar ah waxaan u salaamayaa magaaladan Australia oo aan leeyahay waxay idin tahay fursad iyo habeen wacan oo lagu daafuray barnaamijkan Somali Idol ee la rabo in laga fuliyo Yurub iyo meelo kale oo badanba waan ku mahadsantihiin markale بسم الله نرسكدي بلاي اسمع كان عنيق على بالله بسم الله الرحمن الرحيم برنامج كان سيدا ويدين شيء صاحب كي وهذه هيرجلين وأن ما أنت على مبيه كرو وهيرجلين تهزها وهي هيرجلين وهيرجلين وحعصب على صوّده وواحد كتب لهيرجلين دوره وحسبت الله أساسي أما لو قد واقعي أو هذا لو فلوينا واحد هاي أفكار الصوماليات وقيب كاميرا أستامها قرن إجرا وأقونسي قفك الصومالية وحقول عي سيدا دلكي صوماليا وبربري يسمونه بربر باقلي بربر كاقلي أفكار صويو أيام ربنا إنا كسوق عنه وعن المهنة كتر بينو إني أفكار هويو الصوماليات إلى قبصدان ما أنت هيرك أي مريان ilmaha meeshan ku dhashay ama iyagoo yar bala keenay waa dareemi kartaa sida ay u hadlaan ilmaha yar marka aad weydiiso oo aad tiraado iiga waran hooyada marka uu rabo inuu ku sheego way diran tahay inuu ku sheego wuxuu ku leeyahay hooyo jiray haysataa Soomaali sax maaha haddii aabihiis oo guriga joogo oo hurdaya aad weydiiso oo aad tiraahdo aawe aabaha wuxuu ku leeyahay aaba sariirta yaala waa waxa ay ku soo korayaan oo ku soo weynaanayaan afkaas isaga ah ayaa rabnaa inaan dib u soo qaadno dib u soo noolayno oo aan qayb weyn ku lahaano sida ilmaha loogu kobcin lahaa inay af Soomaaliga ku hadlaan barnaamijkan heesaha hirgalay waxaa lagu dhisayaa fanka iyo suugaanta waxay hormuud ka noqonayaan qaranka Soomaaliyeed suugaantii uu lahaan jiray ee 30 sano kadib markaan dib ugu laabto barnaamijkii heesaha hirgalay ee jiri jiray dadkii lagu soo aasaasay baan ka mid ahaa aniga waxaan rabaa markaa 30 sano ka hor oo dadka inta fadhiya badankooda aanay dhalanin aniga heestii aan uga qayb galay barnaamijkaas heesaha hirgalay inaan idiin qaado idinka waxay aad u jecel yihiin dhalinyarada yaryarka hadda soo kacda hees aan baxday inay qaadaan oo kaliya ma aha taas waxa laga rabaa hees cusub oo aan cidi aqoonin inaad adigu qaado dadkuna bartaan kula jeclaadaan kula qaadaan heesti markii anigu aan meesha ku galay cidi ma aqoon laakiin caawa oo kale markaan qaado waxaan dareemayaa in idinku dhammaantiin ila qaadi doontaan
aad baad mahadsantihiin heestan 30 iyo dhowr sano ka hor ayay ahayd macnaha tusaale aan u qaaday waxa weeye 40 sano ka soo qaaday ujeedada aan ka leeyahay waxa weeye marka ogeysiiska la bixin doono dhalinyarada ku imaan doonta ee doonaysa barnaamijkan inay ka qayb gasho ee ay wax ka noqoto sida heesta loo qaaday 30 sano ka hor ee caan u noqotay ayuu kan hadda u qaadi doonana ee caan u noqon doonta haddii ay biiraado marka qof walba oo ku haminaya inuu heeso ama barnaamijkan idol uu ka soo qayb galo hadduu heestana waa loo qabanayaa oo waa loo garaacaya hadduusan haysanna waa la siinayaa laakiin waxaa laga doonayaa niyad wanaag iyo moral horta inuu ku yimaado meesha maskaxiyo aqoon makama
مسؤول شعبنا ما كمارنتا ماتي دريل ما كمارنتا مرانو قرصور ما كمارنتا مسؤول شعبنا ما كمارنتا ماتي